عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد علي أكاديمي ريفيشن مراجعة لسن 13 عشر كيس دحية تبنادي مراجعة عشر كنا ما ندوي كساب سيهاي كلمة preposition ومحي preposition وحوي وإري موجين يحرير كودة هي مقع أما مقعيال تلمانتا قوب أما وقتي وحوي preposition of time and place وحو تلمام يا وقتي أما ميل aynu guda galno qaybtii hore ee casharka preposition of time waa maxay preposition of time erayo muujinaya waqti erayahaasoo ka kooban in on at erayo kalena way jiraan aynu hoos eegi doono mardhow marka aynu eegno kelmadahan oo example ama tusaale haddaan idhaahdo I study English in the evening in waxaa la isticmaalaa qaybaha ay maalintu ka kooban tahay in the evening in the afternoon in the morning I study English in the evening luqadda ingiriiska waxaan bartaa fiidkii I go to work on Mondays maalinta isniinta ayaan shaqo aadaa maalinta isniinta shaqaan aadaa marka ontana waxaa loo isticmaalaa maalmaha Monday Tuesday Wednesday on Monday on Tuesday on Friday on Saturday on Sunday I go to work on Mondays waxaan aadaa shaqada isniinta I was born in July 2000 waxaan dhashay bishii July 2000 marka bilahana waxaa loo isticmaalaa in June in July in August in March bilahana waxaa loo isticmaalaa in aynu sii wadna casharka I sleep early at night saddexdan jumle ee u dambeeya at baynu isticmaali doonaa at night waxaan seexdaa goor hore habeenkii marka at baa habeenadii la isticmaalaa at night I sleep early at night habeenkii waxaan seexdaa goor hore so habeenkii waa at hadday time noqotona at waad isticmaali kartaa I finish work at 6 p.m. shaqada waxaan dhameeyaa 6 fiidnimo I finish work at 6 p.m. shaqada waxaan dhameeyaa 6 fiidnimo so timekana waa loo isticmaalaa waqti cayiman I stay home at the weekendka gurigaan joogaa weekend waa Saturday Sunday labada maalmood ah Sabti iyo Axad waxaan joogaa so labada shay weekendka loo yaqaano ayagana at baa la isticmaalaa aynu ku sii socono qaybtii kale ee casharka so haddana waxaynu isticmaali doonaa by until for saddexda kalmadood ayaguna preposition of time ayaynu tusaale eegi doonaa I will be with you by 6 p.m. so waqtigana byna waa loo isticmaalaa waqtiga I will be with you by 6 p.m. waxaan kula joogaa 6 fiidnimo wait until the teacher arrives sug intuu macallinku imanayo until taasna waxaa loo isticmaalaa iyadana I wait until ilaa intuu macallinku imanayo sug intuu ama ilaa macallinku ka imanayo I was here for 1 hour waqti cayimanna waa loo isticmaalaa fortaas waxaan halkan joogay saacad I was here for an hour saddexda kalmadood kale ayagana loo isticmaalaa preposition of time halka waxay noogu eeg preposition of time hadda waxaynu gudbi doonaa preposition of place erayo muujinaya goobta marka erayadaas oo ka kooban in on under above between in front behind ayaan haddana eegi doonaa iyagoo tusaale ah the book waa meel halkani waa location hadda maaha waqti the book is on the table buugu wuxuu dul saaran yahay miiska the apple is in the basket tifaaxu wuxuu ku jiraa salada in guduhu ku jiraa weeye in the basket tifaaxu wuxuu ku jiraa salada the shoes are under the bed kabuhu waxay ka hooseeyaan sariirta under ka hooseeya sariirta the clock is above the door saacadu waxay ka sarreysaa albaabka above waxa weeye ka sarreysa the clock is above the door waynu sii wadaynaa the ball is between the chairs kubaddu waxay u dhaxaysaa labada kursi kursiyada between waa u dhaxaysa the bike is in front of the house baaskeelku guriga ayuu hor yaallaa
baaskiilka. The wall is behind the sofa. The wall is behind the sofa. gidaarku wuxuu ka dambeeyaa armaajada ama kursiga ama sofarka waa kursiga weyn lagu fadhiistay xaafadda yaalla. casharkii intaas ayuu inoogu kooban yahay. intaynu ku kulmi doonaa casharka xiga. asalaamu calaykum waraxmatullahi